haweenaydan ma xasuusan karto wejiyada dadka. waxay ku qasban tahay inay ka caawiso madaxeeda aqoonsiga martida muhiimka ah ee soo booqanaysa. waxay ku tiirsan tahay oo keliya faahfaahinta ku qoran faylashooda si ay u ogaato qof walba cidda uu yahay, balse si tartiib ah ayay uga sii gaabinaysaa shaqadaas. markii nin u soo dhaqaaqo si uu u salaamo ayay si dib leh ugu guulaysataa inay garato qofka uu yahay. dad badan ayaa sii imaanaya, iyaduna waxay ku dhowdahay inay jaha wareerto. markaas ayaa qof ku dhacay, dhammaan faylashiina way ka daateen. martidii fibda ahayd waxay bilaabeen inay isbaranayaan oo wada sheekaysanayaan, laakiin madaxeedu weli ma yaqaan cidna. iyadu ma garanayso waxa ay samayso. halkaas ayuu Bill ka soo muuqdaa. caawinta Bill awgeed shaqadeedu aad bay u fududaataa. ugu dambayn waxay si guul leh u dhammaystirtaa hawsha. Gray ayaa u mahad celisa Bill waxayna uga sheekaysaa dhibaatada ay ka qabto aqoonsiga wejiyada dadka. Bill wuxuu weydiiyey sababta aysan dadka kale ugu sheegin. wuxuu yidhi dadka si fudud ayay ku fahmi karaan si qaldan. Gray waxay tidhi sabab gaar ah ma jirto. Bill ayaa yaabay oo weydiiyey waxa ay uga jeedo. waxay tidhi sabab gaar ah ma jirto, waxay la macno tahay inaysan rabin inay ka hadasho ama laga yaabee inaysan xitaa fahmin dareenkeeda. Bill ayaa si fikir leh u yidhi waxaan wax badan kaa baran karaa. wuxuu aad u jeclaaday weedhaas. laga bilaabo maalintaas Bill wuxuu noqday kaaliyaha Gray. wuxuu xusuusin jiray cidda qof walba yahay. hadda Gray waxay awood u leedahay inay shaqaalaha kale marka hore salaanto, kalsooni badanna way yeelatay. xitaa waxay markii ugu horeysay ka qayb gashay casho kooxeed. fiican ula qabsanaysa kooxda ma uusan sii noqon mid adag sidii hore. Jack oo iyada xiisaynaya ayaa soo bixiyey tigidh riwaayad ah, wuuna siiyey kadibna wuu iska tegey. Bill ayaa yidhi maadaama aad jeceshahay waa inaad fursaddan uga faa'iidaysataa oo aad ku casuumtaa. markii Gray isku dayday inay geesinimo hesho oo ay Jack la hadasho, waxay aragtay isagoo dhunkanaya qof kale. waxay u muuqatay inuu horay u lahaa gabar uu xiriir la leeyahay. Bill ayaa ogaaday inay murugaysan tahay, wuxuuna isku dayay inuu qalbigeeda dejiyo. waan ku salaamay abaayo ama aboowe, waxaan rabaa inaan gaaro 5k oo waxaa 5ka ku gaari karaa adinka caawimaadiina. haddii aan gaaro 5k waxaan ballan qaadayaa inaan bari doono hal 5 qof idinka mida sida loo sameeyo muuqaaladan iyo meesha laga helo ee nagu soo biir oo wax naga faa'iid followna soo dheh. yaa filaya in Billna uu murugon karo. isla waqtigaas ayaa qof ku dhacay, wax walbana boorsadeeda way ka daateen. xaaladeedu aad bay u xumayd. Bill wuxuu isku dayay inuu roobka ka celiyo isagoo gacanta madaxeeda kor uga haya, laakiin dhibcaha roobka ayaa ka dhex marayay gacantiisa oo weli ku dhacayay wejiga Gray. si kastaba ha ahaatee ficilkaas ayaa si qoto dheer u taabtay Gray, balse Bill waa ay oo keliya. iyadu ma garanayso waxa ay ka samayso arrintaas. kadib markii ay oyday oo qalbiga iska dejisay, waxay koreen saqafka sare ee dhismaha. Bill wuxuu sameeyey muuqaalo jacayl leh, kadibna waxay ku wada ciyaareen muusig. dadka kale waxay u arkayeen hal qof oo keligiis qoob ka ciyaaraya. markii ay seexatay iyadoo wax cabtay kadib, qof ayaa ka soo muuqday hortooda. wuxuu u yimid muraayadaha. markii uu koofiyadda iska qaaday, arrintu waxay noqotay mid lama filaan ah. wuxuu si dhab ah ugu ekaa Bill, laakiin wejigiisa iyo dareenkiisu aad bay uga duwanaayeen. kadibna wuxuu Gray ka qaaday muraayadihii